ciidamada booliiska ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxay maanta soo bandhigeen gaadiid kala duwan oo maxkamadaha dalku ay xukunno ku rideen kadib markii lagu qabtay qaad ay si sharci darro ah dalka u soo gelinayeen hoggaanka gaadiidka ee ciidamada booliiska ee Jamhuuriyadda Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay kadib markii ay ciidamada booliisku ku soo qabteen qaad si sharci darro ah dalka lagu soo geliyay gaadiidkaasi kala duwan in maxkamadaha dalku ay gaadiidkaasi ku wareejiyeen ciidamada booliiska sidaas oo ay tahayna ciidamada booliisku ay haatan astaamaha qaranka ee ciidamada booliiska ku xardheen gaadiidkaasi waxaan saaka lagu wargelinayaa hadii la yiraahdo iyadoo la fulinayo amarkii guddiga sare ee xanuunkan ee qarniga ee adduunyada halikeeyay la fulinayo ayaa waxa la amray in la joojiyo jaadka kadib markii laga tashaday dadkii ganacsadayaasha jaadka iyo dawladdu ay ka wada hadleen isku afkarteen in jaadka la joojiyo maadaama oo xanuun baas oo dadka farabaas ku hayay uu jiro oo si kaliya u faafayay go'aanka markii la isla qaatay dawladdu go'aan iyo guddiga sare go'aan bay ka qaateen jaadka waa la joojiyay sidaad arkayso dadkii gaadiidka lahaa iyo gaadiid kale fara badan oo xeradan nagu xigtay iyo xeryo kale yaala oo lagu soo qabtay jaadka dadkii iska lahaa ayaa jaadkii soo raray oo soo guray iyadoo ciidanka booliiska waajibkiisii gudanaya iyo shaqadii qaranku idmanayo gudanaya waa laga hortago gaadiidkan iyo kuwa kale oo fara badan iyo kuwa gobolada yaala baa lagu soo qabtay marka sidaad arkayso waxa loo buufiyay gaadiidka waxa la horgeeyay maxkamadda awoodda u leh waa lagu eedeeyay dambigii iyo jaadkii ay siteen iyo waa lagu eedeeyay maxkamaddu markaa go'aan bay ku riday xukun ah in la wareego jaadka laguma eedeysanaashana la xukun lagu riday gaadiidkan lagu wareego sidana ciidanka booliiska loogu wareejiyo sidaa daraadeed baa kula wareegnay aanan u buufinay Cabdikariim Siciid Saalax telefishinka Cable Hargeysa shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab